السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الصوماليات وإذن سلام سيدتين الحمد لله وفي عنها إذن كان سيدة السوق يعني إني رجينا إن شاء الله وقابت وحقي وأكيد إن قبل إذا يروح السبن جريد كأ بولنك كسو جاري سكول كأن متقانا الأركيدي أو كله أو 5 days كإقادة يسي إن مقص لو جرجري marka waan iimayl sheegin markaas waxaan weydiiyey waxna hooyaya ka maxaa dhacay dharkaada mar alla markaan weydiiyey unbay bahal oohin la dhacay yaaba way ilaa markii oohinteedii dhamaysteen waxaan ku dhahay maxaa kugu dhacay maxaa dharkaada jarjaray waxay tiri hooyo macaanta dharkayga waxaa jarjaray laba gabdhood oo waxay tiri twinska ahaa oo dhibi jiray kuwa maqas ku jarjaraan oo maxaad u dhiiweys stop waan ka cabsanayaa waxay dhaheen waan ku dilaynaa oo macluumaad maxaa ugu sheegays waxay dhaheen macluumaadna ma u sheegi kartid oo ana maxaa iigu sheegays adigana kumaan sheego waan baqay waa marka qaasa aad ugu xanuun badan waay dharkii baa intaan qurnay buu aabaheed qaaday noo wada xanaaqsan isa kaliisa baxay dharkii wada maqaskooda jaran ayuu iskoolka geeyey fiirihii buu dhahay gabadheedii wax lagu sameeyey marka intaas heetinka intaas ay gabadhaas waxay ku necbaayeen ay ku bulgarayn jireen xijaabkeeda oo xijaabka ay ku bulgarayn jireen marka ilmihiina iskoolka waa la bulgareeyaa ilmihiina inaad hoos ahaan inaad u ogaatiin ilmaha iskoolka waa lagu bulgareeyaa ilmaha ee sala dhiganaya ayaa bulgareeyaan ilmaha macalimiinta ayaa bulgareeyaan cunugaada war ma ka haysid marka adiga maanta dhow marka waxaa dhici karta cunugii inuu xanaaqsan yahay inuu cunugii furka tuuraayo waxaan ku leeyahay uu kacsan yahay cunugii uuna kuu sheegaynin waxyaabaha ay ka jira iskoolka marka maalintaas inta kadib ballan ayaan ku qaaday inaan cunugaa anigu dhalay iskool markuu aado waxaan ogaaday timeka la wareysta ilmaha inuu bulin kaga socdo iskoolka iyo inaan timeka aan la wareysanin waxaa la wareystaa oo the good things oo ilmaha kuu sheegi karaan oo cunugaada kuu sheegi karaa oo maalin walba iskuulka markuu ku imaado habeen walba maanta iskuulka wax walba oo la soo kulmo oo kuu sheegi karaa habeenka maaragta markuu saaxanayo oo waxaan ku leeyahay qof walbaba sariirtiisa uu koray mid walbaba sariirta ugu tag sariirtiisa la gal u sheekee uu kuu soo furfuraa marka wax walba uu qarsanayo ayuu cunuga kuu sheegaa marka maalintaas inta ka dhacday hadda waxaan sameeyaa yacni way igu dhacday because maqas ayaa lagu jiray dharkeedii wiigii oo dhan iimayna sheegaynin because of cabsi darteed xaalay haddaad sheegto waa lagu dilaa mafahanteen marka ilmaha bullin aan aad iyo aad aan caadi ahayn ee iskoolka ay mataqaana kala kulmaayaan marka dharkii markaan geynay naagta principalka markaan dharka u geynay waxay tiri ma lagu soo celiyaa dharkaada yacni dharkan expensive aad u soo gatay dharkan meelaha lagama helo lacagti yacni ma ku siinaa oo mataqaana a ku soo gatay bal aniga lacag waxaa iga daranaa ku dhan cunugteena lacag waxaa ka daranaa ku dhan iyo dhar waxaa ka daran cunugtaas cabsada intaas yar gashay oo maqaska lagu jiraa dharkeeda ay aamusneedaan ku dhahay cunugteeda ammaan ma ka heli kartaa ayaan ku dhahnay labadan gabdhood adiga anagoo weliba intaas marnay oo waxaa sameynay ee weli bulinkii ay ka joojinin ee stiil inaan mataqaana iskuulka ka bixiye iskuulka ilaa aan ka bixiyo gabadhayda sidii hore ma ahayn laakiin stiil bulinkii waa ku socday marka programkan waxaa idinku soo diyaariyay maamooyin waxaa jirta aan fahmaynin oo ilmaha aan soconin oo ilmaha iskuulka dhibaatada lagu haayo aan war ka haynin waxaad ogaatiin ilmihiina inaad hoos ahaan u ogaantid cunuga marka cunugu markuu iskuulka ka imaado uu kulul yahay uu gaajeysan yahay iskuulka waa aragteen cunto lagama cuno
ilmaha gaajaba eber ka siisay cunuga marka aad baa gaajo u hays markay iskoolka ka imaadaan wuu xanaaqsii maanta dhan lasoo bolgur marka cunuga ha weydiinin xataa asoo kuu oynaya hadduu imaado u deji cunugaas ilaa uu ku qaboobo uu cunto cuno oo wuxuu fiirsan karo uu fiirsado xiliyaha ugu fiican the best aad cunugaada la sheekaysan kartid oo wax walba uu kuu soo qofaayo waxba kaa qarnaynin oo xilliga uu sariirta taga that's the best way amaamooyin kula tala lahaa inaad ilmihiina ka warqabtiin cunugaada maanuhu habeen walba before uu sariirta tagan inaad cunugaada la sheekaystid wuxuu la soo kulmay wuxuu ciyaaray macamadii sidii tiri ee farankiisa siduu dhan wixii dhanaa lagu soo sheegaya marka baartatu ayaan ka dhigayaa marka insha allahu qasadeenii intaas iyo ku egeyd waxyaabo badan ee nii soo wadana insha allah nii soo diyaarin doonaa iyo wiilasha kale iyagana tiinka oo high school ka dhigtaan qaabka insha allahu aniga ii shaqaysay insha allahu iyo waxyaabahay u baahan yihiin oo adiga aad dareemi karin oo hooyo ah insha allahu ayaa idiin sheegayaa subscribe-ka ha ka iloobin like-kan ha ka iloobin share-kan ha ka iloobin subscribe-ka lacag muu kaa jooga waa maya subscribe ku shub subscribe-ka waa free lacag kaama joogo just suurkaada ka dhanucsii insha allah subscribe-ka insha allahu ha ka iloobin inaad subscribe garaysid intaas ayaan idinka tegay qaar ibraka ayaan isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu